بسم الله الرحمن الرحيم وولاشين صديقة سيمن iyo mar kale asxaabteeda qaaliga soo dhawaada meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan waxaan rabaa maanta qaday yar oo fudud inaan kasoo tuuro hadii rabbiga raxmaanka ka dhigo oon raba hadana inaan kaga qayb galo challenge-ga abaayo unique ay noo qabanayso qeyr Allah siiye insha Allah biidmillah baari asxaabay ma sha Allah halkan waxa igu jira waa chicken aan si yar yar oo dhuudhuuban aan usoo jarjartay ma sha Allah halkan waxa igu jira waa cauliflower waxa igu jira ma sha Allah oo jeedaan oo asagana aan soo jarjaray halkan waxa igu jira half basal cad ah halkan waxa igu jira hal xirmadu waa 5 xabo camal oo basal baara halkan waxa igu jira 2 xabo oo baradho ah oo soo jarjar ayadana halkan waxa ii yaala ma sha Allah waa xawaash xawaaji dhuudhuub on tunayn maaji hal qaando babarika iyo huruud insha Allah waxa meesha ii yaala asxaabteeda qaaliga marka insha Allah let's go waa karsaneynaa dabka xaqiisaan aadeena insha Allah asxaabteena waa tasriidi waa noo kululaatay waxaan sameynayaa waxaan ku darayaa xawaash burburka ma sha Allah wax yar baan isla sugayaa inta isla soo kululaanayaan hadana ما شاء الله هذا كدب وحن قدرايا بس البارتي وحير وحن قدرايا هذا ما شاء الله أصحابتي هذا نوع قدرة بس الشيء عدير هاف waxaan hafaaf ugu daraaya waxaan rabaa inaan cornflower gooni u sameeyo chicken kana gooni u sameeyo hadii rabbiga raxmaanka ka dhigo marka intaan ku daray hadana chickenka waan ku daraaya insha Allah qaabka qaaliga marka waxaan ku dareynaa cornflower aan ku dareynaa ma sha Allah marka intaasan si fiican isku soo dhex gelinaa insha Allah qaabka qaaliga marka waxaan ku daraa hadana baradhadii ma sha Allah baradhada si yar yar aan soo jarjaray marka insha Allah intaan soo qalayna asxaabteeda qaaliga marka waxaan ku darayaa xawaashkeygii meeshii ii yaalay ma sha Allah hadana intaan isku soo qalaynayaa oo isku soo noqonayna waxaan diidaynaa canjarada iga dheeraato asxaabteeda qaaliga marka waa taas ay noqotay waan ka dejinayaa diyaar waay hadda tan ma sha Allah kadib ka saarnayna bismillah marka saxaabteeda qaaliga toon ayaa ku jirta iyo basal baarki marka chicken diyaarna hadda ku sameeyna saliidii intii intii hore ku sameeyay leewaay kadib waxaan ku shubayaa basashii kaleeto insha Allah intaan isku shaaxidinaya marka saxaabteeda qaaliga waa taas way ii shaaxiday way ii yara shaaxiday basashii marka chickenkii aan ku darayaa ما شاء الله وجدان chicken كان هذا نفسي عن كده قلينا يا وكذا ما شاء الله صحابتي القاليه marka waxaan ku darayaa maaji iyo babarika bas kan ku darayaa chickenka wax kale kuma dari doona asaga dadkeed marka waa soo qarinayaa waa soo noqonayna ma sha Allah si fiican oo soo shiila oo soo noqonayna صحابتي القاليه marka waa chickenkiina waa inoo diyaar waan ka daminayaa dabka ma sha Allah diyaar waaye asagana marka asxaabtada waa kana cornflower iyo baradhadii meesha diyaar igu yihiin halkaana chickenkiya diyaar igu ah marka waxaan rabaa inaan alaabtan tortilla aan ka geliyo gudaha hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah isa uga gelinayo la socod wacan bismillah marka asxaabteeda waa kana waa soo baxsaday laba xabaan ka soo baxsaday ma sha Allah labadan xabaan rabaa insha Allah inaan idin tuso sababtoo ah canjaradina iga dheeraato mar rabo hadii Ilaahay ka dhigo ma sha Allah chickenkiya hadana ku daraaya oo u jeedaan marka asxaabteeda waa kaasa saasaan u duubaya insha Allah sidaas marka u duubo waxaan sameynayaa bur yaraan soo qastay burka yarka halkaas ka marsanaya adi jiis waa ka marsan kartaa jiis waa ku darsan kartaa daad rabid burka inaad ku darsatid saasaan leeyahay marka hal mar baan duubaya insha Allah saas markuu yahay marka ovenka raba inaan geliyo halkaana raba inaan marka aan saarto aan ku diyaarsado hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah marka asxaabteeda qaaliga saasan ku soo wadaaya waa isku soo noqonayna insha Allah asxaabteeda qaaliga marka waa taas ku soo baxday ma sha Allah sida quruxda badan oo soo roorgalay gudihiina waan ku laabay
sasa gudaha ugu celceliyay marka halkan waxa ay yaala ukunta qaybteeda oo guduudan ba ii taala marka ma sha Allah waxaan rabaa inaan korka ka marmariyo asxaabay waa kasta bismillaahir rahmaanir rahiim marka asxaabteeda qaaliga waa taasa ukuntii ayaan korka ka wada mariyay ma sha Allah marka ovenkan geenaya qudaarta hoose way bisashahay marka waxaan rabaa inay ukuntan igu yara casaato oo bas baalkii maxay tahay tortillaka marka insha Allah 15 minute ovenka waaw ma sha Allah asxaabteeda qaaliga waa kaas ku soo baxay quruxda badan wajida guduud u noqday ma sha Allah waa soo diyaarsanaynaa asxaabay insha Allah asxaabteeda qaaliga waxaan rabaa inaan cabitaan yar diyaarsano marka waxa igu jira xabad oo cucumber iyo xabad oo iyo xirmo oo celery waaye cucumber-kana waxa la dhahaa qajaar marka mishiinkan insha Allah ku soo shiidanayna asxaabteeda qaaliga mishiinkan xoog u qaylo badan yahay marka waa ku soo shiida insha Allah waa isku soo noqonayna insha Allah asxaabteeda waa kaas intaas ii noqday insha Allah waa soo diyaarsanayna koobka ku soo shubanayna bismillaahir rahmaanir rahiim marka asxaabteeda qaaliga waa ka cabitaankeena sidaas ku soo baxay cuntadeeniina waa taas ma sha Allah sida quruxda badan bay ku soo baxday waa taas waxa gudaha uga jiro qudaartii oo dhan gudaha ku jirta say u dhameyd ma sha Allah cabitaankiina waa kaasa asxaabteeda qaaliga dakeeshan like share ki commentiga inta waxay naga hilmaamin waa walaashin Sadiqa Siman oo in la soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ba asxaabteeda qaaliga